السلام عليكم أصحابta soo dhawaada maanta waxaan idin haynaa kareen aad u fiican oo waxyaabo isku dardarne oo gacmaha iyo lugaha daamirsated qurux kaaga dhigayo maasha Allah waxyaabaha isku dardarne waxaasna waa kuwana idin muuqdo maasha Allah waxa waaye waxay ka kooban yihiin 3 shay oo isku dardarno isku shiidnay oo kadibna oo kareen qurux badan oo gacmaha iyo lugaha qurux nooga dhigayo noqona waa kuwana ku idin muuqdo babulation qof walba ka saayo babulation waxa kale u baahan tahay glycerin yar iyo weyn caadi haaf uu kugu filan yahay iyo biyo caafi saddexdaas u baahan tahay saddexdooda waxa sameynaysa waxa soo qaadanaysa saddexdooda ku inta isku darin waxa soo qaadanaysa makiinad oo yani cabitaanka lagu shiido u baahan tahay ileen si fiican inuu isku qasmo waaye makiinada had soo qabsanay waa keensanay waxa ku bilaabeynaa marka hore glycerinka furanayna waxa u baahan tahay qaando yar oo yani oo ku soo dardarsatid oo glycerinka meelo adag yahay ognaana guud hore markuu cusub yahay inta wax kale lagu darin qaandadaas yar u baahananay saas ina ugu darsano ugu shubano kadibna waxa ku sii darsanayna ko glycerinka si fiican u hoolanayna haaf daartid waa isticmaali kartaa qof walba qiyaastiisa anaad glycerinka dhanaan ku wada shubana ilaan wax badan u baahanahay muddo ina yani oo sameeyo marabi glycerinka hada ku shubay kadib waxa ku darsanaa babulationka kadib waxa ku sii daraa biyo caafiga glycerinka oo loo ku darsaday marabi ina maalmaha dhan oo yani wax kale oo shiido oo sameeyo caag yar ku shubana kadib maalmo caagaas la ku isticmaala waata saad u jeeday glycerinka waa dhameeyay babulationka half waaye glycerinka leen wuu yaray babulation half oo hore ugu isticmaala half kale waaye halfkaan oo ii haraa ku shubana kadib biyo caafiga ku tirsana kadib makiinada wax yar gelina ku shiida hadwa ka glycerinka inta igu jirta caaga waa kaasa oo ii dhamaaday waxa ka ku shubana marka biyo caafi qiyaas qof walba uu qiyaas karaamaho half caaga ku shubana ana half ku darsana hada u baahdo gadaal ugu darsana laakiin xoogaa fiican ugu darsana labadooda hada waa isku shiida la dhoosaa idoo adiga glycerinka waa naqana babulationka sino wax yar uu jilcan yahay laakiin glycerinka iyo acidesarkan wax yar waa adkaanayaan biyo caafi fiican ku shubana marka saada half ku shubana kulli hadii kala biyo iga noqona hada u baahdo lacal gadaal ka adkaado oo ku darsana dib malahan hada waa ka kalbar ma gaarsiinin laakiin kalbarka wax yar ugu dhiman oo biyo caafi ku shubtay kadib wax yar makiinta yani gelina waa shiida taasa oo isku soo noqonayna marka shiido insha Allah marka kana waa daminay noo shiidmay waa kaas sidaas oo noogu batay wax badan oo maasha Allah ku noqona oo adkeen oo jilacneen oo glycerin qurux badan ku noqona kaas qaandada saas ku dhahayo qaandada xitaa uu ku dhegdhegay glycerin qurux badan kareen qurux badan oo lugaha gacmaha qurux kaaga dhigayo qofkii tijaabiyo asaa dareemi doono insha Allah soo tijaabiye ani waa tijaabiyay waa u bogay mar walba sana caag ugu sameystaa isku dardarsada caag ku shubta muddana yani kareen uma baahanaysid waana kareen qurux badan maasha Allah oo adkeen oo soft waaye maasha Allah qofkii yaqaano oo mar barta kama haraayo
markaan waa kaas sida caagaas ugu soo diyaarsaday hadaa rabtid caag cusub baaraysan kartaa caaga rabtid ku isticmaali kartaa hada caagan karen horo oo ka dhamaaday waaye wasteful oo ka dhamaaday soo diyaarsaday kareen ku shubtay waa kaas waa tijaabinayna kareen oo qurux badan oo noqday oo adkeen oo jilcaneen marka kaas kareen qurux badan waay ma sha Allah qofkii tijaabiya dareemi karo marka asxaabta subscribe like comment share wax la isku sheega maahan hali saaro waa mahadsantihiin dhamaantiin asxaabtii daawanayso